wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa markii ugu horeysay waxa uu shaaca ka qaaday in qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya lacago ay ka qaadaan dhaqdhaqaaqa hubeysan ee Al-Shabaab. runtii horta in ganacsatada Soomaaliyeed shabaab lacag siiyaan iyagoo naftooda ku furanaya wax waadax oo qof kasta og yahay weeye. waxa la dhihi karaa meel furan oo aanay ka qaadan dalka inta ay lugta ku leeyihiin ama waa yar tahay. waad ogtahay beerihii inay dhibayaan dadkii caruurtoodii oo yaryar xoog uga qaadanayaan, dadka qaarkii kacay oo qoryo qaatay iyagoo aan ciidan ahayn. dhibaato weyn oo shabaab dalkan ku hayo xaq dhaqaale iyo xaq bulsho iyo xaq dhaqan weeye, waa wax la og yahay. wasaaraddu amara ma soo saartay ganacsatada arinta ku lugta leh oo aad soo saarteen ma jirtaa? runtii horta wasaaradda amniga iyo ayay tahay inay ka daba tagto oo ogaato sirdoon ahaan iyo qaab ahaanba cidda shabaab taageerta oo lacag ku taageerta ama si kale u taageerta ama si kale u taageerta. laakiin annaku ganacsatada qaar badan oo kamid ah duruufaha ay ku sugan yihiin ee amni way nooga sheekeeyaan, tay ku hayaan way nooga sheekeeyaan, inay marmarka qaarkood naftooda lacag ku furtaan way nooga sheekeeyaan. waayo nimankani waa alqaacida, xukunkooda ugu yar iyo xukunkooda ugu weyn waa dil. qofku dil uunba inuu taagan yahay marka dee naftooda. laakiin waxaan leeyahay war ha ku furanina naftaada dembi kale oo aakhiro iyo cadaab ha ku furanine. hal mar waxaad tidhahdaan no diida, waxaad tidhahdaan annakoo dhan lacag bixinayno, annakoo dhan kuma taageerayno, alqaacidaa tahay, dadkaad dilaysaa naga tag. marka saasaa rajadii ku imaan lahayd, markiiba way iska carari lahayd. afar tuug oo meelaha jilib iyo ka soo dirdira waayo telefoon, wax joogana maaha, wax naflena maaha. dawladdu waa ka adag tahay, ciidamada dawladdu waa ka adag tahay, laakiin dadkii baad moodaa inay baqdin iyo dee awalba argagax ku rideen oo dadku ka cabsanayaan meel aan qof aan la garanayn, qof aan la arkayn ay ka cabsanayaan. marka taasaa dhibaataa. ganacsataduna shacabkaasi ay ka mid yihiin, laakiin ilaahay iidankiis xilli dhow waa laga takhalusay.